Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada fiidiyoogeyga. Markaan waxaa joogay bandhig oo lagu soo bandhigayay noocyo kala duwan oo wheelchairska ah. Marka wheelchairska waxaa waaye kuraasta oo dadka loogu talagalay oo soconi karin, oo jiiska ama dadka waayeelada ama dadka socodka gabay. Wheelchairadan markasta markasii dambeys waxay isku dayaan in ay soo saaraan yacni wax dadka saaid yacni u sii anfacayo u faa'iideynayo. Hadda noocyada ugu hotsan oo ugu khatarsan oo la soo saaro waxaa waaye noocan oo jaranjarada ka deganayo koraayo. Marka ugu horeyso waxay ibarayeen sida oo loo isticmaalayo markii jaranjaro la koraayo kaleeto. Xoogaa waa cabsaday, waxaas dhahay ama jaranjarada ka dhici doonta. Marka gabadhaana lasii hadlaysay oo idhaysa caadi waaye, just maxaa la ku toosinayaa si normal u fadhin doontaa, waxna ha cabsanin. So markii kow uu koraayo si tartiib u bilaabanaa, laakiin markuu dhex maraayo ordo ku koraa jaranjarada. Waana very safe, like wax laga cabsanayo ma ahan, ma fahamtay? Marka uu ila orday dharrag kor isaaray, kabacdi wuu istoosinayaa, adi dhan wuxuu kuu fadhiisinayaa si comfortable ah. Hadhow xitaa gadaashaada haddii wax yaalaan ama haddaa dhici rabtidoo kale wuu qaylinayaa istaag uu ka wadaa, yacni inaa istaagtid ama saa istaajinayabo. Wuxuu leeyahay sensories, yacni wuu dareemuu leeyahay, yacni wuxuu dareemi karaa haddaa meel oo laga dhacayo aad joogtid, haddaa wax oo ku dhici kartid hadday gadaashaada yaalaan, waxaas dhan wuu dareemi karaa, wuu ku istaajinaa. Marka adi xitaa inaa istaajisid ma u baahnid. Jaranjarada markuu kor ii korsiiyey wuu caadi isku toosiyay, haddana normal fadhigii ii sameeyey, and then yacni waa istaagay. Sidoo markaas qofkaas meeshaas haddii meel la socon kara ee tahay caadi u socon kartaa. And then soo degitaankii haddana markaan isku dayay, soo degitaanka xoogaa cabsida waa iga ba'day. Marka hore uu soo dejinayay slow waaye, xitaa haddaa waa riixoosaa meesha riixa lagu dhahaa, laakiinse ma ordaayo, si tartiib uu isku aadinaa, adjustment uu isku sameynaa. Kabacdi markuu uu helo basekiisii jaranjaro dheer teetoo kale xoogu u soconayaa dhag laakiin ma istaagayo. Markuu slowga yahay waa markuu soo koraayo iyo markuu deganayo, labadaas le waaye. Mujeedido hadda yacni ciyoonuu soo dhaafaya, jaranjarada hadday dheertaa marka ciyoonuu qofki soo dhaafsiinayaa. Waana very safe, fadhigaaga waa very comfortable, si aada dhicina u fadhinaysaa. Hadda xarig ma igu xirno, saa ujeedid caadi u fadhiyaa. Marka wallaahi maasha Allah, bahashaan dad badan ee aad u anfacaysaa, like dadka oo dareemayo jaranjaro ma kori kartid ama inaa qof wacatid waayo hadaa jaranjaro koraysid oo kaleeto ee dhibka ku tahay, aad ay u anfacaysaa bahashaan oo jaranjarada si easy u kori karaan, si easy uga soo degi karaan ayagoona qof dhan caawin uga baahanin. Marka waxaa yacni haddaa u baahantihiin insha Allah waa ila soo xiriiri kartiin, nambarkayga meesha hoose soo dhigi doonaa hadduu Ilaahay dhaho. Markaan waxaa isku dayayay inaa ku socsocdo meesha dhexdeeda. So naagta ay hortaagneed, soo bahalkayga ma dhaqaaqaynin, qayluu sameynay, saa ujeedid, because qofaa hortaagan. Marka hadduu wax ku hortaagan yahay, haddii oo meel aa ka dhici rabtid, waxaas dhan wuu ku istaajinaa, wuu qaylinayaa, ma fahamtay? Wixii dharkayga u celcelinayso wax kale maahan, meesha sensorka oo dareemka wax ka dareemayay oo marada qarinaysaa. Marka waxay dhahday maradahaaga waa inaa isku aruursatid. Waxaa dhahay marka horaa rabaa inaa u koraa dhahay jaranjarada markaan because xoogaa yar safety dareemaa dhahay. Marka waxay dhahday may hore ma u kori kartid, waa inaa gadgadaal u kortid ee dhahday, horena u soo degatid. Saasaa sida saxda oo loo sameeyay. And then saa u soo socday, kaas waa soo qiimeeyay, qiimihii xoogaa wuu qaalisanay. Kuwaana u imaan ayagana same thing ay haayeen, laakiin xoogaa yar different design u ahaa. Design-ku wuu ka duwanay, si nooc kale u shaqeynaya asagana. Markaana ayagana qiimahooda ka wareystay. Hi. How much is this chair? $5,000 US. 5,000. Yeah. Marka $5,000 ay dhaheen. $5,000 waxa u minaa u qalantaa, because waa wax quality-gooda haa yahay, convenient ee loo baahan yahay. Markaan haddana waxaa u imaaday mid oo lagu isticmaalayo gaariga dhexdiisa. Qofkii lagu dhibban yahay in gaari la saaro kale, qofka markuu xoogaa cayilan yahay, qof weyn yahay, malaxa hambaari karo, baawurkana aad u yar yahay. Marka qofkan wuu dhibtoonayaa, dadka saarayana way dhibtoonayaan. Markaan laba dhinac uu lahaa, marna gadaal way oo gadaal uu lahaa,
oo dejinayo oona saarayo markaana hore waaye qofka markii hore la rabo in lasoo fadhiisiyo kale gaarigan dhan ma gadanaysid bas waxaa gadanaysaa bahashaas oo fadhiga ay ku fadhiso mashiinkaas waxaa ku rakibanaysaa gaarigaaga adiga aa leedahay and then si fudud a qofka lagu saari karaa xitaa fadhigaasaa istoosinaysaa ujeedid walaahi maasha allah yani dad badan wuu anfacayaa bahalkan marka isheeg si tartiibu u xarinaya qofkii hoosuu kasoo qaadaya wax rafaada dhamala maraayo kanna sidaasoo kale waa isagane gadaal uu maxaa la ku xiran yahay meesha alaabtan qalabkan bisle oo gadaal ku rakibana gadanaysaa waa la imaanaysaa meesha yani baawrkaaga saara ku rakibanaysaa bis intaasaa la gadaa wuuna ka raqiisanaa xitaa kuwii hadda aa soo arkeen oo noocyadii kale ahaay markaana waxaa arka mid mooto camal ah oo qofkii qoraxdana ka ilaalinayo laamiga uu ku mari karo laakiin anaga laamigaas ma haysano xamar hadday tahay meelaha kale maybe wadamada kaleeto way helayaan laakiin xamar ma lahan sadly laakiin waxaa waaye daarisalaam aa haysanaa hadda daarisalaam waxaa waaye laami qurux badan oo dhisanay leedahay marka maybe qofka xagga la geeyo orodoo ku soconayaa asoo comfortable ah waxaan rajeynayaa wadankeena inuu si fiican u dhismo laamiyaasha especially laamiyaasha si oo yani dadkana si nabad ay u mari karaan haddii lug la dhaho iska lugeyn kartid haddii oo wheelchairkaaga artina ku socon kartid dadka normalkaaba ku rafaadsan marka insha allah kheyr badan idiin rajeynaya insha allah subscribe like and share tahayga iloobina maca salaama